بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحد الرجل الفقير وصار نينكي عيد كاها يتوجي نين أيا وحا كل عيد نمدرن iyo wax la'aan badan markaasuu bilaabay inuu dad ay isyaqaaneen u baryo tago oo u dib sheegto wuxuuna weydiistay inay wax uu xidho ama huwado ku caawiyaan inkasta oo uu dadaalay kama helin waxba wuxuuna gurigiisii ku noqday isagoo quus ah markuu gurigiisii tagay ayuu daal dartii ku gataati dhacay furaashkiisii oo iska seexday waxaase gurigii u soo dhacay oo isu soo daruuriyay tuug ba'an markii uu ninkii ogaaday in tuug soo galay guriga ayuu hoos ugu xanshashaqay oo yiri wax macna u leh oo uu qaadan kara ma yaalan gurigee ha sameeyo wuxuu awoodo hana dadaalo oo meel kasta ha hoomayo ama ha fiirsho tuugii wuxuu dhex meeraystay gurigii wax uu qaatana waa arki waayay wuxuuna hoos kaga talamay meeshan waxba ma yaalaan mana rabo inaan hungoobo oo dhibkii aan u soo maray gurigan soo gelidiisu ay noqoto hal bacaad lagu lisay markaasuu mara calal ah oo waxoogaa daqiiq ah ku xidhnayd soo qaatay oo yiri haddii aan wax kale waayay waa inaan iskaga hanti huraa intan markaasuu go'isii intuu fidiyay ku shubay burkii ninkii guriga lahaa markuu arkay meesha xaal marayo ayuu yiri intan kadib samir iyo wax eeg ma laha burku waa tagayaa oo waxaa isugu kaaharaya hunguri la'aan iyo hula'aan markaasuu ku qayliyay tuugiina waa cararay isagoo go'i ka hanfaday oo qaadan kari waayay waxaana go'i qaatay ninkii caydhka ahaa ee guriga lahaa waana ku labistay burkiina wuxuu ku ceshaday maradiisii calalka ahayd ee uu awalba ugu jiray faallo mahmahdan waxaa loogu mahmahaa ciddii xoolo ku hesha dadaal iyo daal la'aan waayo ninkii guriga lahaa wuxuu helay go'i tuuga isagoon wax shaqo ah oo uu ku mutaystay aan qaban waxaase isweydiin leh ninkan ma u bannaan tahay inuu go'a guntado oo ku xaragoodo isagoo labada dhinac iska eegaya oo uu suuqa muslimiinta ku dhex laafyoodo maya waxay u sugnaatay ninkii lahaa tuugii waa loo celinayaa marka isna laga gooyo dembigii uu galay ee jabsashada guriga dadow ahayd sheekada toddobaad almasduuq walmakhduuc rumayste iyo dhagarlow ama daga iyo runmoode waxaa la yidhi koox tuug ah ayaa doonay inay u dhacaan guri nin ladani leeyahay si ay uga qaataan xoolo waxay fuuleen guriga xaggiisa dambe oo weliba kor ah ninkii guriga lahaa waa gartay in guriga la soo koray oo wuxuu eegay inta ay yihiin wuxuuna aqoonsaday in waxa guriga soo koray waqtigan ay yihiin budhcad markaa ayuu toosiyey xaaskiisii oo wuxuu ku yidhi ruwayda waxaan ogaaday in koox budhcad ahi soo fuushay gurigeenna waxaan iska yeelayaa mid hurda ee igu kici cod dheer oo ay maqlaan budhcadda guriga fuushani waxaadna igu dhahdaa ama i weydiisaa miyaadan ii sheegayn meesha aad ka keentay xoolahan iyo khasnadahan faraha badan markaan diido inaan kaaga jawaabo su'aasha igu celceli way yeeshay haweenaydii oo way maqleen tuugtii codkeedii iyo su'aasheediiba ninkii wuxuu ku yidhi xaaskii hooy naag yahay waan ku siiyey wax kugu filan ood ku noolaato oo cunto oo cabto oo ku raaxaysato hana i weydiin waxaad i weydiinayso waayo waxaan ka cabsi qabaa in la maqlo oo wax aanad raalli ka noqon anna aanan mahadini dhacaan markaasay haweenaydii ku celisay oo tiri xabiibi gacaliye cidina maqlaysaa ma jirtee ii sheeg ninkii ayaa markaa yidhi waan kuu sheegayaa ee xoolahan kuma aan kasban waxaan tuugo iyo budhcadnimo ahayn ay tidhi haye oo sidee u xadday xoolahan badan adigoo dadku kuu yaqaan nin wanaagsan
oo samafal badan oo aan cidina garan karin inaad tuug ahaan jirtay markaasuu yiri taasi waa xeel dheeraan aan ku talax tagay cilmiga tuuganimada waxaan ahay nin tuurid badan sida daraadeedna cidina igama shakido naagtii ayaa tiri oo waa sidee sidaasi markaasuu yiri habeen cirku daruur leeyahay ayaan tagay iyadoo ay la socdaan saaxiibaday oo waxaan fuulay gurigii aan rabnay inaan dhacno dushiisa oo waxaan gaadhay daaqada sare ee guriga ila isku ka soo galo markaasaan ku dhawaaqay hadalkan shawlam 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 7 goor markaasaa waxaa ii furmay daaqadii oo waxaan ku degay gurigii cidina soo dhacaygii ma ay maqlin markaasaan fadhiistay daaqada hoosteedii oo waxaan ku dhawaaqay 7 goor hadalkii mise wixii guriga hoosiil ayaa meeshii igu wada yimi markaa ayaan daadgureeyay waa si qaadi kari waayay oo waxaan dib u furay daaqadii oo saaxiibaday ka soo galeen oo xamaaleen xoolihii markaa ayaan cararay annagaan cidina ogaan tuugtii markay sheekadii maqleen ayay farxeen waxayna yiraahdeen waxaan ka ogaanay gurigan wax inooga qiimo badan xoolaha wayna isnabeen oo sanqartirteen ilaa ay ka maleeyeen in ninkii seexaday waxaana daaqadii u soo dhawaaday tuugtadkii madaxda u ahaa oo wuxuu yiri 7 goor shawlam shawlam wuxuuna ku soo booday gurigii laakiin wuxuu ka jabay canqowga waxaana ku soo kadiyay oo dhangad ku jiiday ninkii guriga lahaa oo wuxuu ku yiri kumaadahay tuugii ayaa yiri anigu waxaan ahay kii la siray ee rumaystay waana tan rumaysashadaydii midhaheedii faallo mahmaadan waxaa loogu mahmahaa cidii adoomaha alle la doonta dib iyagoon ka warqabin in alle sharkooda dib ugu celinayo oo uu ku ceebayn doono dadka hortooda aanayna u dhagoobayn waxa ay ku hamiyayaan ee ay iyaga dibtu ugu noqonayso sheekada 8 alqird wanijaar nin iyo daayeer waaba daayeer wuxuu arkay nin nijaara oo qori kala jeexaya oo intuu meel ku tiiriyay lugaha ku kala rogtay sida fardaha loo fuulo markasta oo uu in dhudhun leeg jeexabana gelinaya dhakaw si ay ugu sahlanaato jeexiddu haddaba mar ayuu doonay nijaarkii inuu dan kale oo uu lahaa soo qabsado waxaase markuu tegayba shaqadii u daba maray daayeer isagoo isku kalifaya waxaan shaqadiisa ahayn wuxuu fuulay qorigii oo wuxuu u sii jeestay xaggii dhakawga la geliyay dibkiisina wuxuu geliyay meeshii dhakawgu ka furay jeexa qoriga haddaba markii uu dhakawgii dhacay ayaa waxaa isku soo noqday labadii jeex ee awal dhakawgu kala hayay waxayna ku dhageen dibkii daayeerkiina wuu la suuxay xanuunkii nijaarkiina wuxuu u soo noqday daayeerkii oo miyirla oo ku kala rogan qorigii intuu xanaaqay ayuu garaacid ugu daray daayeerkiina wuxuu meeshii ka tegay isagoo xanuun la daandaansan wuxuuna cararay isagoo ceebaysan faallo mahmaadan waxaa loogu mahmahaa ciddii faraha la gasha waxaanay aqoon u lahayn oo aanay hagaajinayn oo aan shaqadeedaba ahayn wuxuuna qofkaasi naftiisa u soo jiidaa dhib aqoon xumadiisa darteed bal eeg oo faham xadiiskan nebigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay inoo sheegay min xusni al-islaam al-mar'i tarkuhu ma la ya'niih sheekada 9 الثعلب والطبل dawaco iyo durbaan waaba dawaco gaajaysani waxay soo dhex martay kayn uu geedgeedee kaynta kamida ku xiran yahay durbaan oo marka dabayshu soo dhacdo ay laanta geedku ku dhacayso durbaanka oo durbaankana dhawaaqayo dhawaaq daran dam dam dawacadii waxa ay maqashay dhawaaqii markaasay raadisay oo geedkii kortay ilaa ay ka gaadhay durbaankii markii ay aragtay weynidiisa ayay mooday in baruur iyo hilib ka buuxo oo ay maanta dheregtay waxayna bilowday inay jeexjeexdo
markay aragtay inuu maran yahay oo aan waxba ku dhex jirin ayay la yaabtay oo waxay tidhi garan maayo malaha waxyaalaha liita ee hoose ayaa ugu harag iyo qolof weyn oo ugu cod weyn faallo mahmaadan waxaa loogu maahmaahaa qofkii dadka ku cajab geliya muuqaalka iyo labiska oo ay iskhilaafsan tahay muuqiisa iyo micnihiisu sida alle quraanka ku tilmaamay وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون صدق الله العظيم شكرا طبنات الغراب والأسود مس يتوك وعلى شيء إن توك جيد بور كدول يالكلها بول شمبرات أكتي سنة وجود كلها مس وحنا دعين مركز تو توكو وكحندكتو ومسكو كم جري أرنتنا وعاد ودبتي توكيه دبعتو يو وهن فربضن وجيستي وحنا أرنتي وجاشكتودي دير وصاحب لها ووحو كيري وعن ربعين عن كارت شدو أرنا عن كفكري والهذا إناد يقول عددين كله دير كي أيايري ووام حي توكيه أيايري إن نتقو مسكة marka uu seexdo aan indhaha kala soo baxo si uu indha beelo dhidarkii ayaa yiri farsamo xume taasi waa siyaasad xun oo aad ku fikirtay ku dadaal arrintaada ku gaari karto adigana aan khatar ku gelinayn waxaan kugula talinayaa inaad doonato oo eegato dahab oo markaad hesho aad soo dhufsato iyadoo dad kale ku arkaan oo aad qunyar u soo duusho godka maska oo aad ku tuurto tukihii waa wareegaystay oo waa ilaashaday wax dahab sita wuxuuna helay gabadh dharkii iyo dahabkii ay xidhnayd meel dhigatay si ay u qubaysato wuu ka faa'iidaystay oo wuxuu la booday qoorxidh weyn oo dahab ah wuxuuna ula duulay qunyar iyadoo gabadhii daba qaylinayso dadkiina waa arkeen oo waa daba yaaceen si ay dahabka uga soo reebaan tukihii wuxuu qoorxidhkii ku tuuray godkii maska meel in yar u jirta dadkiina meeshii ayay yimaadeen oo waxay qaateen dahabkoodii waxayna arkeen maskii oo hurda godka afkiisii markaasay isugu qayshadeen oo halkii ku dileen faallo mahmaadan waxaa loogu maahmaahaa ciddii ka takhallusta dhibka cadowgeeda ku hayo iyadoo ku aargoosanay inta la yeelay in leeg nabigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yiri xadiiskan ku yiri al harbul khid'a dagaalku waa khiyaamo